السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السودو هذا كسودو هذا مركلي عشرة دني تحاناها في المورا عشر كان مانتا هدو إلهي رادو حاو كسوب سنادونا habka new project loo abuuro sidoo kale sida aan muuqaal u soo gelin lahayn isla markaana aan muuqaalkii aan u edit gareyn lahayn kadibna as project aan u save gareyn lahayn haddaba ku soo dhawaada muuqaalka isa soo noqod wanaagsan magacaygu waa Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho haddii ay tahay markii kugu horeysay ee halkan aan ugu soo booqatay ha iloobin inaad subscribe noo saartid channelka isla markaana aad gambaleelka furatid sidoo kale u sheer garee saaxiibadaada haddii aad muuqaalka dhimaadkiisa ka heshayna fadlan ha iloobin inaad like noo saartid waxay nagu caawinaysaa inuu muuqaalkeena meel fog gaaro haddaba aan cashirkeenu guda galno cashirkan kii ka horreeyay waxaan kusoo qaadanay interface-ka ama wejiga hore ee software-kan sidoo kale waxaan soo qaadanay menuga iyo waxyaabaha halkan saaran ee u jeedno icons-ka sidoo kale waxaan soo qaadanay ama aan kasoo hadalnay cashirkan kii ka horreeyay qaabka audio track loogu daro qaabka video track loogu daro iyo sidoo kale qaabkii trackii loo tirtiri lahaa marka ku horeyso waxaa laga yaabaa inuu habkan ama halkan oo kale uusan ku keenin balse waxaa dhacdo inuu qayb yar oo new project ah iyo sidoo kale open project uu ku sameeyo no matter kadib waxaa u dhehaysaa new project halkan hadduu ku keenane automatic asaga project cusub ku siiyey magaciisa laakiin annaga hadda waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa file si aan new project u sameyno waxaan leenahay new project kadibna waxaa ka dooranaynaa cabirka aan rabno ogow haddii aad cabirka aad dooratid screenkaaga wuxuu noqon doonaa flatten sidaan oo kale ah amaba sida landscape-kan ayuu noqon doonaa haddii aad kan dooratana Instagram waaye oo istaag ayuu noqon doonaa kana waa sidoo kale waa portrait isna istaag ayuu noqon doonaa cabirada intaan hadba waxaa inta badan dooran kartaa inaad portrait aad dooratid iyo sidoo kale inaad dooratid window screen haddii aad jijiif rabtidna kan dooro haddii aad rabtid portraitna kan dooro aan aragno waxaan ku bilaabaynaa hadda midkaan inaan doorano keliga ku dhahno okay halkan hadda saa u jeedin waxaa waaye waa window screen ama sidoo kale waxaa waaye landscape waxaan rabaa marka in tusaale ahaan aan idin tuso wax ay ku kala duwan yihiin okay muuqaalkan ayaan soo gelinayaa markaan soo geliyo muuqaalkan hadda inta keeno tusaale ahaan muuqaalka aan keeno kadibna cabirkiisa aan doorto qaabkaas ayuu igu soo muujinayaa balse haddii aan cabir kale oo kan ka duwan aan doorto kii ay idin sheegaya aan doorto oo tusaale ahaan file new kadibna aan dhaho portrait kadibna wuxuu leeyahay project horta marta inaan save gareyso ma ayaan leeyahay okay kadibna double click ayaan leeyahay waxaan soo qaadanayaa muuqaalkan kadibna okay ayaan leeyahay haddii kan hadda aan soo jiido kadibna aan dhaho waxa ay siisaa midkan saas ayuu noqonayaa oo tusaale ahaan istaag ayuu noqonayaa sida hadda halka ka muuqato marka farqiga u dhaxeeyo marka aad project cusub sameynaysid inaad landscape dooratid iyo sidoo kale inaad portrait dooratid noocaas ay kala duwan yihiin marka annaga caadiyan waxaan dooranaynaa keena caadiga ahaa waxaan leenahay new project kadibna waxaan leenahay 6:9 window screen ayaa dooran doonaa kadibna waxaan leenahay kii hore mar inaan save gareyno sidoo kale waxaa project kale u sameyn kartaa inaa control plus n aad dhahdid ayadana oo tusaale ahaan right click new project haddii control inaad dhahdidna ayadana oo sameyn kartaa maadaama already anaad kan noo sameysan yahay waa iska caadi haddii markii aan project soo sameeyey aan raba inaan cabirkan uusan anficin waxaan sameynayaa waxaan tagayaa file kadibna waxaan leeyahay project settings kadibna hadda waxaa ii dooran window screen waxaan ka dhigan karaa markaasi cabirka aan rabo oo ah portrait amaba kiisa ayaan ku dhaafi karaa intan waa ka bedeli kartaa oo cabirka aad rabtid meeshaan waa ka dooran kartaa idan oo tusaale ahaan waxaa dhigi kartaa 10:10 oo ah 10:10 okay waa dhigi kartaa asna oo isla eg afar gees waa u dooran kartaa cabirkiisa oo custom ahaan adiga ayaa gacanta ku gashan karo okay amaba sida caadiga ah window screen-kan ayaa iska aadi doonaa kadibna meesha ku dhaafaysaa okay ayaa leedahay halkan waa frames hadda waxaa ku jira 25 frame 29 frame 30 frame waxyaabahan waxaa marka frame per second waaye waa inta sawir uu qaadayo tusaale ahaan satellite-da ayaa lagu isticmaalaa marka muuqaal ah television u shaqeynaysa Mareykan oo kale waxaa ku save gareynaysaa frame per second ka 30 frame marka Europe aad ka shaqeynayso oo kale waa 29 frame kan oo kale oo qaadan kartaa 24 waa Japan marka waa frames frameska waaye marka frames waxaa la dhahaa hadda ka daba geeyo waxaa waaye tusaale ahaan saacadihii hore ee kaasi ama intaba kasoo qaado qaybtan marka aragtid waa saacadii waa hour
qaybtan labaadna waa daqiiqadihii, qaybta kale waa secondkii, qaybtas u dambayso ayaa waxaa lahaa frame. markii kan oo hadda 25 frame uu noqdo, marka 24 frame markuu noqdo, marka 25aad ayuu hal second noqon doonaa. marka Europe iyo aad joogtidna markii 29 uu yahay, 28 markuu yahay, marka 29aad ayuu hal noqon doonaa. waxay kuma fahmi doontid. markaan soo geliyo muuqaalka ayaan frameka halkan kaa tusi doonaa waxa uu yahay, balse aan hadda ka gudubno. intaas marka waa intaasi. waxaan kaliya marka aan rabaa inaan sameeyo hadda in aan soo import gareeyo oo muuqaal aan soo geliyo. muuqaal waxaan usoo gelin karaa dhowr nooc. inaan halkan intaan tago file, kadibna aan dhaho import, kadibna aan dhaho import media. optionkaas koowaad waa usoo gelin karaa oo computerkayga meesha aan joogo, meesha aan rabo oo muuqaalkayga yaalo, computerkayga meesha muuqaalkayga uu yaalo ayaan kasoo qaadi karaa. optionka labaad, control adoo haayo ayaa waxaad dooran kartaa i, kadibna wuxuu ku geyn doonaa meesha computerka uu ka yaalo muuqaalka. option saddexaad ayaa jiro, inta ayaa waxaad dhigi kartaa right click, ayadana wuxuu ku siin doonaa meeshii computerka uu ka yaalo muuqaalka. ama maya calaamadan balaaska ayaan click ku dhigi karaa. waa optionka afaraad, ayadana sidoo kale aad ku keeni kartid. amaba banaanka intaa u baxdid ayaa waxaa sameyn kartaa inaad drag and drop ku sameysid muuqaalkaaga. waa kana waa dooranayaa, waa soo jiidaya. markii calaamadaas aan saa u saaro, softwarekayga uu soo kaco ayaan halkan kusii dayn doonaa. intaasoo noocba oo aad ku keeni kartaa import muuqaalkaaga inaad kusoo import gareysid, aad ku keentid qaybtan projectiga ah. okay, muuqaalkan halkan i yaala projectiga, haddaba sidee timelinekan aan ku keenaa. laba nooc baasna oo ku keeni kartaa, in calaamadaasi balaaska ah ama thumbnailka ah ama projectiga aad click ku dhahayd oo waxaa kusoo qoraya add to the project. kadib wuxuu ku weydiinayaa cabirkaagii miyaa rabtaa hore mase kana ka dhiganaysaa. haddii kana dooratid waa cabirka macnaha maxaa la jira adiga aa wadatay. okay ayaa leedahay. okay, halkan ayuuna keenay. optionkaas waa ku keeni kartaa. optionka labaad ee ku keeni karta waxay tahay inta soo qabatid aad soo jiidid inaa halkan aa keentid. intaas waa habka marka aad ku keeni kartid muuqaalkaaga timelineka. waxaan rabaa marka framekii haddaan kuu sheegaya inaan kaa dabageeyo. hadda muuqaalkaygan waa meeqaa frame aan arko, waa soo wadaayaa muuqaalkaygan. okay, waxaa waaye 13 second iyo 13 frame waaye. oo tusaale ahaan hadda haddii aan rabo inaan 13 second bas aan ka dhigo, falaarta ayaan dib ugu laabanayaa. okaas halkaas markay joogto ayaan iska tirayaa. intaana kale hadda iska tiro ama iska laabo, muuqaalkii muxuu noqday 13 second. framekii dhan waa iska tuuray intii dheerigeed waa micnaha. okay, kaasaa marka waxaa lahaa ustaad frame ayaa lahaa. okay, intana waa ka arki kartaa oo muuqaalkaaga inta uu yahay waa ka arki kartaa. oo waxaa waaye waa 13 second waaye, no frame. marka haddii aan ku dhaho kalo tusaale ahaan muuqaal waxaa sameysaa 10 second ah iyo 15 frame. haddaan ku dhaho tusaale ahaan 10 second waa kaas, ama 15 frame waa meeqa, halkaas oo kale waaye. okay good, hadda waxaa waaye 10 second iyo 15 frame. okay, taas kaga gudubna. marka waxaan rabaa muuqaalkii maadaama halkan aan keenay in aan muuqaalkii aan jaro. editinka lagu sheega waxaa waaye muuqaalka marka aad jaraysid, meesha aad rabtid inaad muuqaalkaada ka jartid ayaa geynaysaa. kadibna marka muuqaalkaasi aad jartid, inta aad rabinna waa iska tuuri, inta aad rabtidna waa soo qaadanay. haddana tusaale ahaan waxaan rabaa in muuqaalkayga inta uu ka bilowdo inaan jaro, kadibna waxaan sameynayaa calaamada maqaska ayaan kaliya ku dhahayaa. okay, hadda saa ujeedid wuu kala jaray. maye option kale ayaan sameynayaa. marka meesha aan rabo inaan ka jaro aan geeyo, waxaan dooranayaa control anoo haya b aan keyboardka la qabanaya. haddana sidoo kale waa uu jaray. maye option kale ayaa jiro, tusaale ahaan calaamada oo hadda waa kana uu isku dhegan yahay, meesha aan rabo inaan ka jaro ayaan geynayaa. kadibna waxaan leeyahay right click, kadibna waxaan leeyahay split. hadda wuu kala jaray. okay, meesha kale ee aan rabo inaan ayadana aan tago oo aan qaato ayaan tagayaa. halkaan oo kale ayaan rabaa markuu tago inaan jaro. marka waxaan rabaa qaybtan hore iyo qaybtan dambe inaan iska tuuro oo qaybtan dhexe aan qaato. sidoo kale waxaan sameynayaa ama control b aan isticmaalaya, ama right click intaan aan split dhahaya, ama calaamada maqaskaan kaliya ku dhahaya. calaamada maqaska aan doortay, kan dooro iska tuur, kan dooro iska tuur. maxaan qaatay inta dhexe. hadda muuqaalkayga waxaa waaye waa 4 second iyo 12 frame waaye. okay,
intaas marka waa in habka muuqaalkaasi loo jaro. laakiin waxaa jirto in aan barababa muuqaalkan intaan damba dhan inaan hal mar tuuro. si aan u tuuro waa dooranayaa, waxaan leeyahay right click, kadibna waxaan leeyahay trim end playhead, qaybta dambe iska tuur. okay, waa tuuray. waa ujeedin ma qayb dambe dhan hal mar baxday. ama waxaan samayn karaa oo kale dooro, kadibna waxaan dhahdaa alta ayaa waxaan la qabanayaa close bracketka. okay, qaybta dambe waa tuuray soo ma jeed. amaba qaybta horaan rabaa inaan tuuro tusaale ahaan, asana waa dooranaysaa meesha aragti markaa geysid waa dooranaysaa, kadibna alta ayaa qabanaysaa, kadibna waxaa leedahay open bracket, qaybta hore kaa tuura ayadana. labadaas ayadana waa haddii aad rabtid intaad qayb aa u jarjar lahayd oo aad waqti kugu qaadan lahayd inaad qaybtan damba dhan maadaama aad u baahneen hal mar aad iska tuurtid. ama right click intaad dhahdid aad trim to the end aad dhahdid. haddii aad qaybta hore aad rabtidna right click intaad dhahdid start to head hadda aad dhaho oo tuuray. amaba waxaan dhihi karaa sidoo kale dooro alta qabo iyo open bracket, qaybta hore aad tuuraysaa. haddii qaybta dambe inaad tuurta aad rabtidna waxaa samayn kartaa right click ayaa dhihi kartaa, kadibna waxaa dhihi kartaa end to the playhead, qaybta dambe kaa tuuraya. amaba adigoo haya alta ayaa close bracketka aad dooran kartaa. labadaas noocne waa labada nooc ee markaasi aad qaybtaas damba dhan haddaadan rabin aad hal mar isaga tuuri lahayd. waxaan rabaa marka in maadaama muuqaalkii hadda aan project cusub aan sameeyey, isla markaana aan import sameeyey oo muuqaalkii aan soo geliyey, muuqaalkii aan timelineka aan keenay oo aan jajaray, waxaan rabaa inaan asa project ahaan aan u save gareeyo muuqaalkayga. si aan muuqaalkayga asa project u save gareeyo waxaan tegayaa qaybta file, kadibna waxaan leeyahay save as, waxaan dhahayaa save project as ama save the project. marka save haddaan dhaho meel asa ay tilmaamayo, save haddaan dhaho meel kale ii yaala meesha u yaala u geyn doonaa. marka waxaan dhihi doonaa save project as, kadibna wuxuu dhihi doonaa muuqaalkaaga meel geyso. desktopka ayaan dhahay, kadibna waxaan ku qortay create project ayaan ku qoray. okay, create project baan ku qoray, kadibna waxaan leeyahay save. hadda banaanka u baxo waxaan arkayaa waa kana wuxuu u save gareeyay qaabkii filmora oo formatka ayuu u save gareeyay. hadda click aan dhaho automatic wuxuu soo furi doonaa cashirkii caadiga ahaa ayuu soo furi doonaa. daawade cashirkeenii saddexaad ee aan kusoo qaadanaynay habka loo abuuro new project, loo sameeyo import, isla markaana muuqaalkii aad timelineka aad keentid kadibna aad jarjartid, ugu dambeynna inaad save gareysid as a project. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashirkeeni. tani intaan kulmi doono casharadii xigo waxaan idinku dhaafayaa nabaddiino.